السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما شاء الله diin jacayl baa inaga muuqda, allah inoo kordhiyo. runtii maaha waxaad u soo ururteen shakhsi, laakiin waxaad u soo ururteen ilaa xilligaa iskoolka aad u dhex joogtaan waa inaad ilaahay kalaamkiisa aad maqashaan iyo kalaamka nebigeena calayhi salaatu wasalaam. waana calaamaadka dadka diinta jecel ee khayrka jecel ee muslimiinta lagu yaqaano weeyaan. ilaahay baad jeceshihiin, insha allah ilaahayna uuna jecel yahay, insha allah dhahada. hadduu ilaahayna jeclayn bini aadan kaama dhigan ilaahay, wax kaluu kaa dhigi lahaa. ilaa xayawaankaba ilaahay isagaa abuuree. xayawaanka ilaahay baa abuuray, adigana ilaahay baa ku abuuray. marka ilaahay wuu karaya inuu wax kale kaa dhigo, laakiin wuxuu naga dhigay bani aadam. saaad ogtihiin aabbaheen aadam calayhi salaam ciid baa laga sameeyey, ciid. bani aadamka intiisa kaloo dhanna waxaa laga abuuray biyaha yar ee manida la yidhaah baa laga abuuray. ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegoo yidhi: falyandur ilinsaanu mima khuliq. bal qofkan insaanka ee ilowshaha badan leh ee wax ismoodaya, bal wixii aan ka samaynay uun dib ha ugu noqdo, ha eega baa ilaahay leeyahay. qur-aanku inta badan wuxuu sheegaa waxa aad ka timiday buu kuu sheegaa, meeshaad ka timiday. waayo qofku hadduu garto waxa laga sameeyey iyo meesha uu ka yimiday, ma kibraayo qofku, wax ismoodi maayo, si xunna u socon maayo. marka ilaahay baa inagu leh, war waxaan niga samaynay bal eega. 40 cisho caloosha markay biyuhu ay ku dhacaan riximka haweenka khaasatan, 40ka hore buu nebigu yihi waa nudfa, waa qandhuuf yar. 40ka ku xigana buu nebigu yihi waa xinjir yar oo dhiigoo riximka ka lulata. 40ka dambena buu nebigu yihi waa mudqa, waa waslad yaroo hiliba. 120ka habeen ilmuhu markuu caloosha hooyadii uu ku jiro ayaa ilaahay malag buu u soo dhiibaa markaa ruuxda, deedna markaasuu malagu ruuxda ku afuufaa. markaasuu qoraa 4 shay. qofkan ma ninbaa ma naagbaa, habeenkaasaa la qoraa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ma qanibaa ma faqiir buu noqonayaa, iyadana habeenkaasaa la qoraa. meesha uu ku dhimanayo iyo da'diisu intay tahayna habeenkaasaa la qoraa. saciid iyo shaqi, ma mid khasaaray oo khasaaro ku dambayn doonaba, mise waa qof liibaanay oo hadhow toole wanaag la kulmi doona, iyadana habeenkaabaa la qoraa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. qur-aanku waxa uu ka warramayaa iyo xaadiistu 1400 oo sano ka hor, qaabkan imika zamankan culumtan casriga ee ninku hadda aad dhigataan ee teknolojiga la yidhaahdo, ee lagu ogaaday bini aadanka qaabka loogu abuuro caloosha hooyada, hadday gaaladu ogaadeen. laakiin qur-aanku wuxuu ka warramay 1400 oo sano ka hor. maxaa bini aadanka abuurkiisa ilaahay qur-aanka ugu sheegay? bimacnaa bini aadanow, ilaahay isagaa ku abuuray oo quruxdan fiicanna kugu abuuray. laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim. suuraddii ugu quruxda badnayd ayaa ilaahay adiga kuu abuuray. xayawaanka u fiirsada, qaar dhulkay ku socdaan oo calooshay ku socdaan, qaarna 4 lugood bay leeyihiin oo cirka maba arkaana dhulka unbay eegaan. adiga ilaahay waxa uu kaa dhigay fa minhum man yamshi calaa rijlayn. 2 lugood baad ku socotaa adigu, 2 lugood. xaggaabaad eegaysaa, xagganaad eegaysaa, cirkaad eegaysaa, dhulkaad eegaysaa. quruxda iyo abuurka ka kugu qurxiye kugu abuuray waa kuma? waa ilaahay caza wajal. khalaqakum fasawwarakum
فأحسن صوركم بإلهي إلهي وإني أبوري وإني سميي مركاسا إلهي سورة قروح ذا بدن له إلهي نقو أبورو نقو سميي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وفكستو الصانع وحسمي مال افتين وحكو سميا ولكن إلهي عز وجل مركو كور رمي أبورك بن آدنك هل كو إلهي نقو أبوري ما تقانا صدح مدو صدح ميلودو صدح ذا ميلود بأي مدو أيهين دحدو ذا أي إلهي قفك بن آدنك عندها نقو سميي سنكنا وقصو سميي لبدا فريون وقصو سميي قعمها وقصو سميي لغها وقصو سميي علوشة وقصو أبوري صدح مدو علوشة دحديد ومدو مديرت هوستيد ومدو رحمك هو يدا وويلدن أو بن علوشة هو يدا كجرو بن آدم كان لقول حبورو صدح دام مدو دحدو دا إلهي قفك بن آدم وقصو دم يستري qofka adduunkan markuu yimaado gacno uma soo baxda lugna uma soo baxdee uu kobca qofku bas uu kora wax uu kora uu koraya mooyaane qofka bini aadanka hadduu caloosha hooyadii uu ka soo baxo isagoo farta ay ka maqan tahay waxa adduunka bini aadan iyo dhakhtarraya oo qoonyahan jooga hadday isku yimaadaan farta u samayn kari maayaan ciddig u samayn kari maayaan laana bini aadanka jirkooda meesha lagu soo abuuray lagu soo dhammaystiro waa caloosha hooyada hadduu qofku halkaa uu soo dhaafo isagoo gacani ay ka maqan tahay gacantii adduunka dusheeda ugu soo bixi mayso gacantii adduunka dusheeda lagu samayn kari maayo isagoo gacan lu noolaan isagoo gacan lu dhiman isagoo lug lu noolaan isagoo lug labu dhiman sida uu calooshooya kaga soo baxay qofka bini aadanku hadday basharku isku yimaadaan ma bedeli karaan marka ilaahay caza wajalla ina abuuray ee halkaa inagu soo abuuray muxuu ilaahay markaa inaga doonayaa innaka wuxuu ilaahay ku abuurtay waa cibaadadiisa wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa sha allah wada garanaysaan qur-aanka ilaahay baa ku le war had jin iyo insi anaa ini sameeyey baa ilaahay yidhi wax kale iniima samayn buu ilaahay le waxaan nii abuurtay oo nii samaystay inaad aniga caabudaan baa ilaahayna leeyahay cibaado waa maxay inaad jirkaaga halka ugu quruxda badan la ilaahay wajigaaga dhulka u dhig muslim buu ilaahay kaa dhigay muslimnimadaadu noloshaada ha ka muuqato qofku markuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah markuu yidhaahdo islaamnimadii uu qiray laakiin markuu salaada qofku uu tukado wiil hadduu yahayna markuu salaada tukado gabar hadday tahayna markay xijaabatee salaada ay tukato bimacnaa markaa islaamnimadii waan ku dhaqmay ka dhiganto waan muujiyey bay ka dhigan tahay laakiin qofku intuuna salaada uunan tukan oo halka jirkiisa ugu qurux badan waa meesha memoriga bini aadamku ku yaalla waa maskaxda halkaaba qofka bini aadamku wax ka fahmaa waa meesha qofka bini aadamku uu ka garto tani ma hooyadaabaa tan ma walaashaabaa tan ma eedadaabaa tan ma habaryartaabaa tan ma gabadh dariskaagaa tan ma walaashaabaa waxa uu qofku ka gartaa waa maskaxda hadday qofka maskaxdu ka baaba'da ka warrama halkaasaa la doonayaa wejiga dhulka ilaahay inaan u dhigno jabhada halkaa markaad dhulka aad degtid ilaahay caza wajalla cimrigaaguu kuu barakayn caafimaadkuu kuu barakayn xataa ma gaboobayo qofku markuu cibaadada ku barbaaro in sheekha oo da'diisa 100 lagu qiyaasay ayaa waxaa la arkay waa 100 jir laakiin markaad salaanto gacantiisa 20 jir baad moodaa waa 100 jir laakiin marka uu kacayo 20 jir baa la moodaa waa 100 jir markuu socdo waxaa la moodaa 20 jir baa la moodaa xoogiisa markaasaa lagu yidhi adiga dhaqaaqile gaboobile maxaad cuntaa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan cunaan inii sheegi buu yidhi dhegaysta ixfad illaaha yaxfadka buu yidhi amarka ilaahay ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaye anu amarka ilaahay baan ilaaliyaa buu yidhi amarka ilaahay baan ilaaliyey xafidtu allaha fii sigarii faxafida allaahu fii kibari buu yidhi markii aan yaraa baan ilaahay amarkiisa ilaaliyey oo amarka ilaahay waa maxay salaaddii baan ilaaliyey diinta islaamka ku dhaqankeygii baan ilaaliyey akhlaaqda wanaagsan baan ilaaliyey wixii xumaayee diintu iga reebtay oo dhanna waan ka reebtoomay intaan dhallinyarada ahaabaan ilaahay taacaddiisa iyo amarkiisa aan ilaaliyey markaan weynaaday anigana cimrigayga caafimaadka ilaahay baa ii ilaaliyey buu yidhi ilaahay qofku hadduu amarkiisa ilaaliyo ayaa ilaalinaya
هريان إلالين إلهي باكو إلالين إلهي عقلك كو إلالين وقف الصلاة كو قبوبي يران صلاة كو بلابي markuu weynaado maskaxdiisu waa normaal boqol jir hadduu gaadho caqligiisu uu shaqaynayaa laakiin qofka hadduu bilaa cibaado ku weynaado 60 jir hadduu gaadhaba uu buusbuusi hadeetoole saadarteed cibaadada ilaahay noo abuurtay innaka danteena ku jirta maslaxadeena ku jirta markuu ilaahay ku leeyahay icaabud oo ii sujuud oo ii rukuuc oo iga cabso markuu ilaahay ku leeyahay waxii qaba ilaahay kuma le adaa ilaahay u baahan إلهي أنيقا أباهن إلهي إنه مباهن يسوي إنك إلهي أباهن إلهي عز وجل حديث القدس وكيلها عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا بإلهي الضوامه يقيو كيني هري والنبي آدم عليه السلام إلى كينا أدن بي بشر كا أدن بي بن آدم كيبو نقوم دونا ما قرن كرين إلهي با يقانا جيني إنسيجينو هديئات سيدا كيني نيقو الله كعبسك بدن هذا ديقا وضع عبسوتان با إلهي ليهي وحبا عنيقا ما ركتاني إيمن زيادين كرتان إلهي إنك أوبهن والإلهي ما إنك أوبهن مساسيقا نوبهن إنك إلهي أوبهن مركا إلهي جعلو إلهي مركو بني آدم كاديقا وكو جعليه إلهي مرقو قف مسلم وشهادنا وكادقين أو كجعليه وقتك إنكو إمك آد كجرتان ووقتك وقفي عن ويان عافمات كينو بقولو يهي إحوق كينو بقولو يهي مركم بالدونا يا إنا نقطة قف إلهي يقانو إلهي كعب صونايا هذا دا آتيهين إلهي كعب صوتان واحد نصيبه يا لنا إنسان ما تقانان تضبط مالك قيامها ومالك ومالنت هرك إلهي ويانا هرك لأونا جرين بو نبي قد عليه الصلاة والسلام ابن آدم كبنك قيامة انتو اللي جوجيو عد آيا الله سؤال قادي بو نبي قد مدحوك سالو دول ديكي دونا داتكو قاقاون وبلا در وبلا كباء مالك كاسو نبي قد شاب نشأ في عبادة الله نكا دلني يردا قفك دلني يردا رقي الدمر مدكو دوني بهان نقضي إلهي عبادة دي سي طاعت دي سي صلاة دي خيرك وناقا كبر باري مالين كاسا إلهي هركي سهوز زوجون دونا أبو رسولك يجي الله ينقى وضع دقو مركا انت دأدي وقتك ونلاشا وقف عنيد باد كجر تانيمك إنكو حلي جنب الله دونا يا نفتا إن لو توصي إلهي طاعت ديس سيدا نكا شيخ عالم كان سوشي يجي حفظت الله في صغري مركان دأذا يرآنها دلن يراد آنها إلهي بان إلى اليبو لأمر كيسي أمرك إلهي ومحي يا صلاة دي بان إلاليي عنده إلهي إسيين وان إلاليو وحوال بكما إيجين مقالك إلهي إسيين وحوال بكما مقلين وان إلاليي دلن يرنما دي وان إلاليي وما دقدقين دقدق واتفاهم إسان صوما إيقا دلن غاربا دلن يردا لبا تنجير كسو كبوس بوصابا سودو معصية وحوال بوصا مينايو يران تيدي بان إلهي إلالية بود أمر كيس إلهي با إلالية ما أنت عنيق نبي يعني مركان دلن يردا هابان إلهي كبقي ما دامو أدون إلهي أنا هاي سدا أدون كانو السعودة سدا أدون كان نكوي مكان ما أدون ما إلهي بان هاي سوما ولوحي أدون إلهي بان هاي لو قعنت تاك لكن سدا أدون كما وسعنا أنا نيم علينا دقيستا لأن أديكم مركز جوابت هالك كسوسار كستيون هالك كسوسار أنا سؤال بانك ويدين بريجي الضوامة اللي يبين جري أي أن أنت تاجر ولا عقل ذات كهالك اللي جو يبين يبو تقول مركز الضوام بسوي بسدي هو قوينو مركز ولا يمد ماشي سي وحور رباينو بير تابو رباينو هذا كشقة مركز هالك اللي يمد يبو كيدي وريا مقعبة اللي يقول هذيك مركز يقول مقع أذو بحساب مقعين نقوم بكيد مركز يقول وركان أدون كواب عجيب دركا معاج عشود حدث عيشك درها كو صوت طلع وحول دركا دي صوت شديد ما أنت إيك أنتو بدر إيه نقونا يقول ورعنت هذا معاج عشود عنت عيشك مركز يقول بطروقي
la hadlo wuxuu cuntadaad maanta ii keentoon baa aniga cunto ii noqonaysa buu markaasuu balkan eega buu su'aashaan weydiiyay baa anigu igu soo celine war aduu maanad ikhtiyaar lahayn buu ku yidhi markaasuu addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu addoon macnaheegu waa sidaas kulligeen imiga waxaa tiraahday addoommo ilaahay baan nahay laakiin sidee addoommaha maan u soconnaa uma soconno addoon ilaahay macnihiisu waa maxay waxa uu doona ma eego waxa uu doona ma dhegaysto waxa uu doona kuma hadlo suu doona uma socdo dharkuu doona ma xidho meeshuu doona ma maro waayo waa addoon ilaahay baa leh yaa kule ilaahay uu ku arkaya uu ku maqlayaa nin dhallinyaro ah ayaa u yimid sheekh la odhan jiray magaciisa ibraahim aladham raximahullah dhallinyaro ah markaa dhallinyaro ahaa markaas sheekha su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi yaa sheekh wuxuu yidhi dhallinyaraan ahay naftaydii iyo shayddaankii baa iga adkaaday buu yidhi markaa dembi ma dayn karaye maxaan sameeyaa bal ii sheeg buu yidhi dembi ma dayn karaya macnaha been inaan sheega ma dayn karayo heesaha inaan dhegaysta ma dayn karayo zina inaan sameeyo ma dayn karayo zina inaan daayo ma dayn karayo waxun inaan daawado ma dayn karayo khamri inaan cabbo inaan joojiyo ma dayn karayo markaa shayddaankiiyo naftii baa iga adkaadee sheekh maxaa sameeyaa bal ii sheeg buu ka yidhi markaasuu yidhi dee maxaad samayn buu yidhi ma ilaahay ku abuuray wuxuu daag kaa yidhi baa daynayn buu ka yidhi markaa iskoolkan aad dhigataan wixii loogu talagalay waxaan ahayn haddaad ku dhex samaysaan ka warrama ma soconaysaa war ma soconaysaa dee ma soconayso looguma haddaad tiraahda ka warran halkaasaan maaragtaane waa kalaaska loogu talagalay in wax lagu barto adiga wax lagugu baro haddaan riwaayad la dhex imaada ka warran ma soconaysaa may waxaa lagu odhanayaa sheekh waxaani meesha looguma talagelin dibadda ula baxa ilaahay adduunkan isagaa iska leh adduunka ayaa leh allah baa iska leh adduunkan wuxuu ilaahay u dhisto ugu talagalay in isaga lagu caabudo in isaga lagaga cabsoodo weliba ilaahay uu kuu digay wuxuu ku leeyahay wayuxadirukum allahu nafsah ilaahay baa kaaga digaya cadaabkiisa oo kule war waadii iman doontaa maalin waa kula xisaabtami doonaaye iga soo cabsooyo amarkayga soo qaado markaa ninkii sheekhi uu yaabay wuxuu idhi siday ku dhacdaa buuhi ma ilaahay ku abuuray quruxdaa ku siiyey wixii uu daag kaa yidhi baad dayn leedahay haa naftiiyo shayddaankaa iga adkaaday sheekh hay maxay weydiinaysaa dee maxaan sameeyaa buu ka yidhi wuxuu idhi haa wixii la samayn lahaa baad anigay weydiinaysaa haa anaa kuu sheegay buuhi dembi kasta ood samayn karto samee buu yidhi zinayso oo been sheeg oo waxaad doonto daawo oo waxaad doonto cun oo waxaad doonto samee laakiin dhulkan aad ku samaynayso ilaahay baa iska leh uga kaco dhul kala doondoono buu ka yidhi war muu jiraa u yaabay yarkii yara sheekh dhulka lama jiro dhulku waa dhulkan uun adduunka halka u dambaysa haddaad tegto cirkuna waa cirkan dhulkuna waa dhulkan uun bari baan taraag safar diyaaradeed safarkii igu dheeraayeen diyaarad u raacay 15 saacaan diyaarad saarnaa non stopa oo vol directia waanu fiirsadaa marka dhulkuna waa dhulkii cirkuna waa cirkii uun meel looga baxayo ma jirto marka uu yaaba yarkii yaraa dhul kaloo dee ma jiro buu wuxuu dhegayso arsaaqadaad cunaysa ayaa ku siiyey allah biyahaad cabbaysa ayaa ku siiyey ilaahay caanahaad cabbaysa ayaa ku siiyey ilaahay arsaaqadiisa u daa buu yidhi markaa tidhi ilaahay baan caasinayaa oo amarkiisa qaadan maayo wuxuu lahaana waan cunayaa isma qabatee ilaahay risqiisa u daayo waxaad ku noolaata adigu doondoono buu ku yidhi ma jiraan war ma jirtaa dee ma jirto bariiskaad cunaysana ilaahay baa sameeyey hilibkaad cunaysana ilaahay baa kuu sakhiray neef caanahaad cabbaysana ilaahay baa ku siiyey bani aadanka adduunka ku nool xabad bariisa ma samaysan karaan xabad haruuna ma samayn karaan bani aadanku waxay cunaan waa risqa ilaahay wuxuu idhi dhegayso haddaba
mid kalena waa kugu dari oo saddexaad ilaahay haddaad tidhi dembigii uu daayidhi ma dayn karayo dee bal meel uu ilaahay kugu arkaynin doondoono oo ku dhaadhaco halkaa dembiga ku soo samee taana ma dhici kartaa may waxba ilaahay kama qarsoomo dee markaasuu dee iska toobadkeen buu yidhi usluubtaa uu sheekhaasi yarka uu u waaniyey ayuu yarkii ilaahay qalbigiisa ku bedelay deedna uu toobad keenay marka dhallinyaro ubadkaygaad la da'tihiin waxaan igula dardaarmayaa adduunkan ilaahay baa iska leh innakan ayaa sakeen leh ilaahay waa ina jecel yahay innakuna han jeclaanno oo sida ilaahay uu inaga doonayo hanu noolaanno markaasaa nolosha adduunyadu way kuu macaanaan xataa tacliintaadaa kuu barakoobi shaqadaad heshaa kuu barakoobi caafimaadkaa kuu barakoobi waxaad haysata ilaahay baa ku siiyey waxa kaa maqanna ilaahay baa kuu hayo cid kale waxba kuuma hayso ilaahay xidhiidh fiican han la yeelanno insha allah dhahada diin marka lagugu yeedho waxay ka dhigan tahay war qof wanaagsan ha noqotida kaale diintaada baro marka lagu yidhaahdo marka diinta lagugu yeedha laga yidhaha salaada tuko ilaahay ka cabso ilaahay jeclow ilaahay rumee ilaahay raalligeli marka lagu leeyahay waa qof wanaagsan ha noqotida kaale diintaada bara baa lagu leeyahay waxa dadku ay kugu jeclaanayaan waa diin u fiirso labada walaalo ee wada dhalatay laba gabdhood baa walaalo ah mid waa gabadh asturan oo guriga joogta oo hooyadeed iyo aabbaheed u khidmaysa oo salaadeeda tukata oo tacliinta ku fiican midna waa dhinaca kale labadaa keebay hooyadu jeceshahay gabadha asturan ba hooyadu jeceshahay aabbaha laba walaalaa tihiin adu waa tukataa iskoolkana waad degataa balwadna ma lihid masaajidkana waa tagtaa aabbahaana waad u khidmaysaa walaalkaaga adiga kula dhashay tacliintii uu ku khasaaray salaad ma tukado jaad iyo sigaarna labadaabuu ku cabbaa iyo wax kaloo balaayo kaloo kol u dheer labadaa aabba kee buu jeclaan kee baa la aamini kaa diinta haystaa la aamini ogow marka waxaad dad ku noqonaysaa waa diintu qofka beenaalaha hadduu diinta barto uu diintiisa ku dhaqmo uu masaajidka tago uu ilaahay ka cabsoodo beentii uu dayn qofkii xumaanta samaynaya hadduu aqalka ilaahay galo uu ilaahay u toobad keeno dadkao dhan baa jeclaan ilaahay wuxuu kugu jeclaanayaa waa diin marka dadku diinta inay ku dhaqmaan oo diinta ay bartaanna waxaan u baahannahay iimaan nin sheekha nin taajira ayaa ciyaal dhallinyaru maalin wacdiyu ku yidhi salaada tukada markaasay yidhahdeen ma tukanayno maxaa u tukanayn muslimiin baa tihiin muslimiin baana laakiin ma tukanayno sabab waxay dhaheen dee shaqo ma haysanno lacag ma helno adigu lacag baad leedahay waxaad la tukanaysa annagu lacag ma haysanay ku yidhahdeen wuxuu idhi lacag anaa nisiina ma tukanaysaan wuxuu idhi salaad kasta markaad tukataanba 1,000 faran baa nisiin maalintii waa imisa bishiina 150,000 fahmaysaan taas salaad lacag lagugu siinaya ka warran waa cajiib soo maaha bishii hore way tukadeen si fiican way yimaadeen saaleerkii buu siiyey haddana bishii labaad way tukadeen si fiican weliba isagay istusaan safka hore moogtahay 150,000 buu u dhigay bishii saddexaad markay soo doonteen ayaa la yidhi lacag halkan niimo taallo maxaa dhacay baatroogii baa lacagtii ragga hasiinina aqalkiisay ugu yimaadeen saaleerkii lanama siinde wuxuu yidhi maanaa ii tukanayseen mise ilaahay maya dee salaadda ilaahay baa nagu leh laakiin dee adaa nagu yidhi tukada lacag baa nagu siine markaasuu yidhi dee waxaan lahaa labadaa bilood waxaa saaleerka inii siiyey waxaan lahaa dhallinyartani diinta ha jeclaadaan oo masaajidka ha ku xidhmaan oo salaadda wanaaggaygiiyo macaankayga ha arkaan baan lahaa oo inii siinaye adeerayaalo dee 2 bilood baan lacagtii ini siiye aniga iima tukataane ilaahay baad u tukataane oo ilaahay baa salaadda inagu le dee iska tukada buu ka yidhi waxay yidhahdeen oo ma yidhahdaa tukada naga yidhi lacagteedana siidee
wuxuu yidhi may iska socda gaardiyaankiibuu ku diray way cadhoodeen markaasay yidhaahdeen oo nima siinaysid haa waxba nima siinayo cirka soo rida waxay yidhahdeen oo dee adma waxaad ka heli bay yidhahdeen tii horen tukanaynayba bilaa weysa ku tukanay yidhahdeen waa nebiga ku salliya labadii bilood ee tukanaynayba bilaa weysa ku tukanayna bimacnaa waa maxay hadduu qofku ilaahay halkan cabsida ilaahay ayna ku jirin oo qofku isagu iimaan uu lahayn diinta lacag kuma qaadan karo ma maqlaysan hadalkayga diinta qofku waxa uu ku qaataa waa alla ka cabsi iyo iimaan iyo jacaylo marka inaan iimaankeenna dhisno oon diinteenna baranno diintu waxa dad kaa dhigaysa waa diin akhlaaq wanaagsan waxaa lagu helaa waa diinta dad qof wanaagsan oo ammaano la waxaad ku noqotaa waa diin gabar wanaagsan oo guri joogoo asturan waxaad ku noqotaa kaa dhigaysa waa diin wiil wanaagsan oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca waxaad ku noqonaysaa waa diin diinteenna markaa inaan baranaan u baahannahay maanta oo waxbarashadiinna adduunyadaad ku dadaalaysaanna iska barta alxamdulillah iska barta oo intaad yar tahay wax baro laakiin masaajidka gal oo dacwadda baxa oo bishan fakaanskii baad galaysaa noweelkii aad odhan jirteen goormuu bilaamaya fasax uu bilaamayba khalaas berri buu ka bilaamayaa masaajidda xaafadihiinna ku taallo o dhan jamaacadda ka baxaye 3 cisho baxa oo 5 cisho baxa oo 10 toddobaad baxa oo iimaankiinna dhisa oo zamankan maanta aad ku jirtaan eed la kulanteen inninku ma zaman fiican baa mise waa zaman xun ya u fiican yahaya una fiican yahay una xun yahay waa seef laba afle zamanku uu xun yahay waayo dadkii inaga horreeyey 30 sano ka hor waddankeenna marka la eego fasaad badan ma jirayn 30 sano ka hor haddana 30 sano ka hor sidaa maanta gabdhaheennu iskoolkan liisetata tirada miya liisetata saa gabdhuhu u asturan inay u xijaaban yihiin 29kii katarabanduuskii brofeserkiinu isagoo ardaya yaan garanaya anigu oo khuruujkeena la bixi jireen iminka markay brofesera noqday ba naga yar dallaceene caawa adreeskiisii baan helay marka insha allahu tacaala wakhti fiicanna waad ku dhacdeen dhinac marka la eego khayr baa muuqda oo gabdhihii baa asturan oo wiilashii baa diinta jecel dhinac marka la eegana aaladan gacanta aad ku sidataan ee moobeelka la yidhaah fasaadkii adduunka o dhan baa la soo geliyey fasaadkii adduunka o dhan marka is-ilaaliya oo ilaahay ka cabsooda oo waalidadiinnana ixtiraama oo zamanku dhinacna waa zaman xun xagga xumaanta ha ka raacin xaggeed ka raaci xagga wanaaggaan ka raacayna saa diyaar mawna insha allah ragga dhallinyarada wiilashana waxaan sheegayaa fasaxan ayaa u diyaar inuu ilahay dartii u baxsho 5 cisho allah inoo dembi dhaafo sidaasaan intaasa aniga iga waanaa maanta waan nii imiday ma nigu soo noqnoqdaa mise waa insha allah waan isoo ziyaaran doonaa wakhtigaa iska badan oo safaradaa nagu badan laakiin markaan faraaqila magaalada joogno waan isoo buuqan doonaa allahna inagu anfaco maxamed baa nagu wareejin insha allah